waxaan bilownay diiwaangelin ku saabsan ciidanka daraawiishta kaas oo ujeedooyinkiisu ay tahay in la tiro koobo oo si casriyaysan loo diiwaangeliyo dhammaan ciidanka daraawiishta ee booliiska ah ee Jubbaland ay haysato iyadoo ay naga caawinayso saaxiibadaya AMISOM oo naga taageera dhinaca horumarinta haday noqoto arrimaha ciidanka. aad baan ugu faraxsanahay maanta hawsha halkaan ka socota database-ka ama registration-ka ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad u danaynaynay oo aan aad u soo dhaweynayno runtiina waxaan maaragtay uga mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay arrinta iyada ah oo ay ugu horeyso AMISOM Police gobolka Jubbada Hoose ama Jubbaland qaybta Jubbaland iyo UM Police iyo Federal Police oo intuba hawshan dhammaantood ka wada qayb qaadanaya aad baan uga mahadcelinaynaa runtiina aad baan u soo dhaweynaynaa waana waxyaabihii dalabkanaga iyo baahidanaga iyo codsiganaga ahayd aadna waan ugu faraxsanahay. This is in line with the AMISOM and the UN program of developing the force into a police force in Jubbaland that will be mandated to keep law and order and security in Jubbaland state. We are targeting 5,000. There are 5,000 of them to be registered. We are starting with Kismayo. All those in Kismayo, we expect to register about 1,500 from Kismayo alone. Then we shall move to other states like Gedo region. We shall go to places like Dolo, like Elwak, like Kuda, and Beletsao.